Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Nin dhalinyaro ah ayaa wuxuu u yimiday oday aad u xigmad badan, wuxuuna yidhi waxaan iska goyn la'ahay arrin aan dareemay inaysan fiicnayn. Odaygii ayaana ku yidhi oo maxay tahay arrinta? Ninkii dhalinyarada ahaa ayaa dhahay marka aan suuqa marayo waxaan fiiriyaa gabdhaha anigoo marba mid isha la raacaya, mararka qaarna kama jeedsan karo, maxaan sameeyaa ii sheeg. Odaygii ayaa ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu u dhiibay weel ay ku jiraan caano, wuxuuna u sheegay inuu geeyo meel cabaar u jirta meesha ay joogaan, wuxuuna kaloo ku yidhi yeesan kaa daadan dhibic caana ah. Sidoo kale wuxuu raaciyey wiil kale oo wata ul si uu u garaaco marka uu daadiyo caanaha. Ninkii dhalinyarada ahaa ayaa qaaday caanaha wuxuuna la sii dhex maray suuqa ilaa uu ugu dambeyn geeyey meeshii laga rabay isagoon daadin. Kadibna wuxuu ku soo laabtay odaygii ayaa wiilkii dhalinyarada ahaa wuxuu weydiiyey siday ugu suura gashay inuu geeyo caanaha isagoo aan daadin. Ninkii dhalinyarada ahaa ayaa ku jawaabay waxaan ka baqay in suuqa dhexdiisa laygu garaaco dadkana laygu dhex ceebeeyo, sidaa darteed waxaan diiradda saarayay inaysan iga daadan wiilka caanaha ku jiray. Ninkii odaga ahaa ayaa haddana weydiiyey inuu arkay dadka agtiisa marayay iyo in uu xasuusto wejiyadooda. Ninkii dhalinyarada ah ayaa wuxuu ku jawaabay qof aan wejigiisa arkay ma jiro oo xitaa lama socon waxa ka dhacaya waddada hareeraheeda. Odaygii ayaa yidhi waa sida qofka muslimka wuxuu ka cabsadaa Allah iyo in maalinta qiyaamaha makhluuq hortooda lagu ceebeeyo, sidaa awgeed qofka muslimka ahi wuxuu ka dheeraadaa dhammaan wuxuu Alle ka xarimay. Allah inaga dhiga kuwii Alle si dhab ah uga cabsada oo ka dheeraada wuxuu Alle xarimay, lana yimaado wuxuu Allana faray. Waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iiday. Haddii uu ku anfacay like saar, lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.